xuska maalinta haweenka adduunka oo sanad kasta bisha Maarch 8 laga xuso dhammaan caalamka ayaa si weyn loogu dabaaldegay caasimadda Hargeysa dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo socod lugaha laga soo bilaabay xarunta wasaaradda maaliyadda ilaa iyo xarunta cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa oo hortiisa ay ka qabsoontay munaasabad loogu dabaaldegayo maalinta haweenka adduunka iyadoo deeqo xoolo ah iyo dhar la gaarsiiyay haweenka ku jira qaybta dhimirka cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa waxa kale deeq xoolo la gaarsiiyay caruurta lagu xanaaneeyo xarunta daryeelka iyo dhaqan celinta ee Maxamed Mooge xuska maalinta haweenka adduunka darteed Luul Aadan Geedi agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa ka warantay sida ay waajib u tahay in la dhowro xuquuqda dumarka qaba xanuunka dhimirku ay ummadda iyo bulshada qaybaheeda kale ay ka mudan yihiin marka waxa loogu talagalay inaynu nidaano kelmado kamida oo aynu ku dhiiri galinayno in bulsho ahaan iyo qaran ahaanba dawlad ahaan iyo bulsho ahaanba la ilaaliyo dumarkaasi dhimirka ka qaba Xaliime Xaaji Cabdi gudoomiyaha ururka qaranka haweenka ee NAW ayaa iftiimisay in haweenku ay u baahan yihiin inay helaan xaq ay leeyihiin ee ka maqan dhimirka qaba in hoos loo wax loo qabto maadaama in badan caafimaad qabto inta bukaan la daryeelo talabadan ku darna waxa weeye dumarka haweenka in dumarka loo codeeyaa oo qorsada la siiyaa oo dumarka la hoos loo eega in xaq ku leeyihiin iyaguna shaqayn karaan waxna qaban karaan agaasimaha fulinta dalada haweenka ee Nagaad Nafiisa Yuusuf ayaa dhankeeda dul istaagtay in xuska maalinta haweenka adduunku ay deeqa kaalmo gaarsiinayaan munaasabada awgeed dumarka ku jira xarunta dhimirka cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa iyo caruurta lagu xanaaneeyo xarunta dhaqan celinta dadkeena dhibaataysan muxuu ahaayay in la gaarsiiyo deeq maanta halkan waxa lagu gudoonsiinayaa dumarka maadaama ay maalintii dumarka tahay dumarka iyaguna dhibirka ka xanuunsanaya ayaa looga faa'iideeyay in maalintan iyagana waxtar loo geysto wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland mudane Cali Maxamed Axmed Cali Sandulle ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray guud ahaanba haweenweynaha reer Soomaaliland xuska maalinta haweenka adduunka darteed wuxuuna wasiirku ka waramay qorshaha cusub ee sanadka loogu dabaaldegayo xuska maalinta haweenka adduunka haweenweynaha reer Soomaaliland haday gobol haday degmo iyo haday shakhsiga aad iyo aad ayaan idin hambalweynayaa maalintiina idin kula ciidana farxad iyo wanaag ilaahayna waqtigeeda hayna gaarsiiyo inagoo soo caafimaad iyo nabad qabna waxaan idin sheegayaa gobolada oo dhan inay xafladani ka jirto maanta iyadana oo kale la sameyn jiray in muxuu ahaayay la sameeyo hudheel waqti laga khudbeeyo annagoo tashaneen marwada oo waliba soo jeedinta ay lahayd waxay soo jeedisay kulama dumar dhumaniga ay ku jiraan isbitaalka oo agaasimaheedii nala joogo hortoodana aanu hadda ku qabanay xafladan in aanu iyaga xusno oo la qaadanay marwada waxaanu maanta ku talagalay in aanu siino aradbeel iyo xoogaa adhiga oo ay maanta ku ciidaan waxaanu kaloo ku daray darbijiifta carruurta darbijiifta ee Maxamed Mooge oo iyagana aanu ka qayb gelinay iyaguna hablo iyo inamada isku jiraan inaanu ka qayb gelinay iyagana inaanu adhigo qallo gabagabadii waxa deeq dhar iyo xoolo noole la gaarsiiyay haweenka lagu xanaaneeyo xarunta dhimirka ee cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa iyo caruurta ku jirta xarunta daryeelka iyo dhaqan celinta ee xaafadda Maxamed Mooge